dadka ku nool dunidan aan joogno waxay ka kooban yihiin dad qani ah ama hantiilayaal iyo kuwa faqiir ah oo aan waxba haysan nolol maalmeedkoodana la dagaala waxaa jira 7 farqi oo u dhaxeeya dadka faqiirka ah iyo kuwa qaniga ah ogowna dhammaan dadka qaniga ah kama aysan dhalan reer hantiila ah haddaba isweydii sidii ayay ku noqdeen hantiilayaal sababta ugu weyn ee ay ku kala duwan yihiin waa sida ay u fakaraan iyo qaabka ay ugu tasarrufaan amaba wax ugu maalgeliyaan hantidooda haddaba wax ka ogow 7 waxyaabood ee ay ku kala duwan yihiin qofka qaniga ah iyo kan faqiirka ah inta aanan u gudagelin caqabadaha marka hore nagu soo biir subscribe saar channelka like taabo share tuna waa muhiim haddii aan ka bilowno tan 7 waxay noqonaysaa qanigu ma muujiyo hantidiisa inteena badan markaan aragno 2 qof oo isla socda markasta midka ugu labis qurxoon ayaan u qabnaa inuu yahay kan qaniga ah laakiin arrintu sidaas way ka duwan tahay dadka qaniga ahi waxay raadiyaan shay tayo leh oo raqiis ah halka dadka kale ay raadiyaan shayba shay inta uu ka qaalisan yahay haddaba markaad aragto qof dharkiisu dhalaalayo iyo ku kale oo dharkiisu aad u dhalaalin oo isla socda ma ahan kan dharka qurxoon inuu yahay qaniga waxaase laga yaabaa kan kale inuu yahay qofka qaniga ah balse tayo ahaan waxaan ku raacay tan 6 qofka qaniga ahi wuxuu lacagtiisa ku bixiyaa agab tayo leh sida alaabta wax lagu kariyo waxaad cabtaa 24 saac shaah aad u fara badan waxaa laga yaabaa inaad tahay dadka jecel shaaha ayna adag tahay inaad joogtid adigoon hal koob ku dhufan maalin kasta laakiin waxaad aaminsan tahay in soo iibsashada aaladda shaaha lagu kariyo ay tahay qaali balan samayno wax yar oo xisaab ah diyaar ma tahay maalinkii waxaad cabtaa koob shaaha waxa uu dhigmaa 3,000 oo shilinka Soomaaliga ah bishii waxaad cabtaa 9,000 oo shilinka Soomaaliga ah waxayna u dhigantaa $3.60 oo doolarka Mareykanka ah halka sanadkii la mid noqonayso $43.20 ama 43.2 oo doolarka Mareykanka ah haddaba sanadkii waxaa kugu baxday shaahaga lacag dhan $43.2 halka aaladda qiimaheedu uu yahay $15 waxaa la mid ah agabka kale sida midda wax lagu kariyo tan dharka lagu dhaqo iyo waliba waxyaabaha kale la adeegsado waana sida ay u fakaraan dadka qaniga ah oo maskaxdoodu shaqayso tan 5 qaniga waxa uu shaqaysaa lacagtiisa halka dadka kale ee hantida yar ay iyagu lacagta u shaqeeyaan qaniga iyo midka hantida yar labaduba waxay qabtaan shaqo adag laakiin kee ka dhiga lacagtiisa inay isaga u shaqayso dadka qaniga ahi waxay lacagtooda ku sameeyaan maalgashi si biri ay wax badan u helaan halka dadka kale ay ka masuugaan inay bixiyaan hantidooda oo idil tanaafaraad ay ku kala duwan yihiin waxay tahay qanigu waxa uu yaqaan sida loo maamulo hantida awoodda maamulka hantida waxay ka mid tahay sababaha ugu waaweyn ee dadka qaniga ahi kaga fiican yihiin dadka kale waxay og yihiin miisaaniyadooda kumana xadgudbaan ama si badan ama israaf ah kuma bixiyaan hantidooda tan 3 dadka qaniga ahi waxay arkaan fursadaha halka kuwa fuqarada ah ay iyagu arkaan caqabadaha arrinta kale ee lagu kala duwan yahay ayaa ah qaabka fikirka taajirku waxa uu arkaa fursadda wuxuuna ku dadaalaa inuu xalliyo caqabad walba oo ka hor imaata si uu u gaaro hadafkiisa ama yoolka uu socdo halka dadka kale ay ka cararaan iskana ilaaliyaan caqabadaha iyo waliba khasaaraha tan 2 dadka qaniga ah waxay ahmiyadda siiyaan hadafkooda dadka qaniga ahi waa dagaalyahano waxay ku soo talagalaan
inay ka raayaan caqabadaha halka dadka fuqarada ah ama kuwa hantida yar ay u baqaan hantidooda kana cararaan khasaaraha iyo caqabadaha. tan u dambaysa waxay noqonaysaa faqiirku waxa uu iska indha tiraa caqabadaha halka qanigu uu wajaho. ma ahan in aanay u cabsan maalkooda, runtii ma jiro qof aan u baqayn hantidiisa, laakiin qanigu wuxuu wajahaa caqabadaha iyadoo kan faqiirka ahi uu islowsiiyo caqabadaha ilaa ay isaga ka takhalusaan. haddaba adigu kuwee rabtaa inaad ku biirtid dadka hantida leh iyo weliba kuwa faqiirada ah ee nolol maalmeedka la daaladhacaya? adiga ayaa go'aamin kara kuwaad noqonayso, waana inaad yeelataa astaamahan ku soo sheegnay in qofka qaniga ahi leeyahay haddii aad diyaar u tahay in aad qani noqoto kana soo baxdo dabaqadda ama heerka dadka faqiirka ah. mahadsanidin.